haddii aan ka hadlo baahida xafiiska haysta xafiiska dhalinyarada ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ka mid ah baahiyo qalabeed oo ay ka mid tahay qalabka kombiyuutarada xafiiska waxaan leenahay ilaa iyo 4 xafiis iyo conference hall afarta xafiiska gudoomiyaha hadda aad joogtay ma laha qalabka kombiyuutarada ma laha desktopyada ma laha xafiiska maxaa la jiray conference hallka waa idin soo tusi doonaa ma lahan wixii agab ahaay ama conference table-kana ma laha conference chair-gana ma laha xafiisyada kale iyagana waxaa yaalaan hal miis yaalaan iyagana waxay u baahan yihiin table-ladii iyo armaajooyinkii iyo maxaa la jiray kombiyuutarada desktopyada u baahan soo waxaan runtii aad uga codsan lahayn shirkadda Waybiir iyo hay'adaha maalgeliya intaba inay barnaamijka naga caawiyaan oo runtii noo qalabeen xafiiska sifo uu noqdo xafiis runtii looga adeega dhalinyarada soona dawashana baahida runtii shaqo ee xafiisyada taala runtii waa u joodeen hadda waxaan hal desktop aan haysanay iyo hal printer iyagana way halaabeen media-dana waan tusi karaa way naga halaabeen oo hadda waxaan ku shaqeynaa ma laha hadda standard xafiisku yahay wuxuu u baahan yahay si degdeg ah in ay hay'adaha caalamiga wax noo qabtaan waana soo dhaweynaa runtii cid walba oo barnaamijkan naga caawinaysa haday tahay YPA iyo haday tahay UNFPA iyo UNHCR intaba iyo mashruuca BBF ka guud ahaan baahiyada kale runtii dhalinyarada qabto waxaa weeye dhalinyarada waxay u baahan yihiin in garaadkooda la dhisa barnaamijyadii advocacy aan u sameynayna dhalinyarada si ay uga qayb qaadan lahayn siyaasadda iyadana waxaa loo baahan yahay in la sii dardargeliyo oo la sii wada dhalinyarada ay noqdaan kuwa runtii si fiican mashruuca uga faa'iideysta haddana runtii dilo fiican ee dhalinyarada muujin hayaan oo inay door muhiim ah ka qaadan hayaan wacyigelintii iyo foorumyada aan sameynayna runtii wax badan ayuu ka bedelay garaadka dhalinyarada taasna waxay sababtay ugu yaraan sodomeeyo dhalinyaro hadda inay yihiin musharaxiin u taagan kuraasta baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland taasna waan kaga mahadcelin laakiin waxaan ka codsan lahayn mar labaad inaan la joojinin advocacy-ga loo sameynayo iyo lobbyga loo sameynayo iyo dhiirigelinta la dhiirigelinayo dhalinyarada foorumyada joogtana inay noqdaan kuwa joogta ilaa laga gaarayo xilliga doorashada taasoo aan u rajaynayna insha Allah inay courage-ka iyo waxa la jiray ay niyadda u dhisaysa hataa dhalinyarada ku fikirtay inay qaybaha siyaasadda ay ku qayb galaan aad iyo aad u mahadsan yihiin baahideena xafiisyada waa intaas afartaas xafiis waxaan rabnaa ka codsanaynaa in loo qalabay oo conference hall ku jira waxa la wixii la awood haddii maanta labana loo qalabayna labana trip kale loo qabayna iyada waan soo dhaweynaa cid walba wax barnaamijka ka geysanaysana waan kaga mahadcelinaynaa aad iyo aad u mahadsantiin waxaa kaloo jira xafiiskan hadda aan ku jirno waa xafiis kira ah kiradiisana waa $300 waaye dhalinyaro mishaari ma ahan iyada lafteeda waxaan codsan lahayn in intuu mashruuca socdo in nalaga caawiyo dhanka kireynta waxna laga caawiyo idan waa codsan lahayn aad iyo aad u mahadsantiin